aniga iyo adiga iyo malaayiin qof oo daafaha caalamka ku kala nool waxay aad u isticmaalaan sharikadda wax laga raadiyo ee Google oo ah bar laga raadiyo macluumaadka caalamka oo dhan, dad iyo dunyo iyo waxyaabaad culuum fara badan waxaa maalin walba isticmaala ama adiga ama aniga ama se kuwo kaloo fara badan. Haddaba waxaa jiro oo maanta aan qaadan doonaa 5 tricks ama 5 khiyaano ama 5 wax oo ay tahay inaad ogaatid si aad Google-ka wax aga raadsid. magacaygu waa Maxamed Xirsi, halkaana waa Hicks Technology. Haddaba waxaan maanta qaadan doonaa sida hore kugu sheegay 5 trick oo ay tahay inaad aqoon u leedahay si aad Google-ka waxa aad rabto aad raadiso. Waxa koowaad oo aan qaadan doonaa waxay tahay file type. Arday fara badan oo caalamka ku nool waxa ay Google ka raadiyaan faylal ay kamid yihiin PDF, doc, PPT iyo waxyaabaad fara badan. Haddaba sidee u raadinaysaa? soo kici browserka aad isticmaashid kadibna soo qoro Google oo ah barta aad rabtid inaad wax ka raadisid. Markuu sidan kugu soo kaco Google maxay tahay file type-ka aad raadinaysid. Hadduu PDF yahay waxaa qoraysaa magaca waxa aad raadinaysid marka koowaad oo ah kaba soo qaad. Waxaa raadinaynaa book la magacaabo telecommunication Google ayaa raadinaysaa kadibna waxaa raacinaysaa calaamadda 2 dhibcood ayaa leedahay kadibna PDF ayaa leedahay kadib enter ayaa leedahay. waxa ku soo baxayo waa faylal PDF ah. PDF sidaas ayaa ku dagaysaa. hadda textbook rabtid textbook aad rabtid raaci, laakiin sidan ayaa loo qoraa markaad rabtid inaad PDF wax ku raadisid. magaca waxaa qoraysaa faylka magaciisa kadibna type-ka uu yahay 2 dhibcood ayaa leedahay, type-ka ayaa raacinaysaa. haddaad rabtid inaad ka heshid asaga oo ah doc ama se word document ah waxaa leedahay doc ayaa raacinaysaa 2 dhibcood doc. kadib waxa ku soo baxaya ayagoo doc ah. haddaad rabtid inaad raadisid faylka doc waa kana. haddaad rabtid inaad raadisid asagoo ah PPT ama PowerPoint 2 dhibcood PowerPoint ayaa raacinaysaa. kadib waxa ku soo baxaya PowerPoint. trick labaad waxaa la lahaa sida loo raadiyo unknown phrases waxaan ka wadaa kaba soo qaad. maanta waxaad ku qortay we will never ayaa qortay. marka ereygan qortid we will never waxaad aqoon weysay ereyga ku xigay. marka has oo aqoon weys waxaa sameynaysaa star ayaa leedahay ama xidig ayaa ku soo qoraysaa meeshaas. we will never walk alone aqoon weys alone xasuusatay alone ayaa qortay. enter ayaa leedahay. waxa ku soo baxaya erey ka maqan oo ah we will never walk alone. waa taasa halkan waxaa ku qoran we will never be alone. intan waxaa ku qoran we will never alone. marka alla iyo intii jirto phrase noocaas ah oo jirto oo kuu soo qabanaya adna midkii aad rabtay ayaa ka dooranaysaa. trick saddexaad aanu gudubno. trick saddexaadna waxaa lagu magacaabaa result nearby. kaba soo qaad waxaad joogtaa meel ka mid ah wadamada qurbaha, waxaa raadinaysaa maqaaxi ama se waxaa raadinaysaa hotel ama meel ku dhow. markaas waxaad qoraysaa ereyga la yiraahdo result nearby ama se waxaad iska qoraysaa hadda meesha joogtid nearby result ama se hotel ama wixii aad rabtid ayaa raacinaysaa. haddaad doonto haddaad restaurant aan dhaho waxaa ii soo baxayso maqaaxida iigu dhow. waxaa la yiraahdaa Jubay Restaurant. Shabeelle waa joogtahay, Asmara Parna waa ii dhowdahay ayadan. marka sidaas ayaa lagu soo saaraa. haddaad rabtid inaad hotel ka dhigtid nearby ayaa ku qoraysaa hotel ayaa leedahay. kadib waxaa ku soo baxaya hoteelada kuugu dhow. hotelka iigu dhow waxaa la lahaa Kima Hotel Nairobi. waxaa laga yaabaa inuu wax yar ii jiro 180 mitir ii jiraa. sidaas ay ayagana ku soo baxayaan. qaybta afraad ayadana waxay tahay sida loo raadiyo image. yacni waa marka aad rabtid in aad image geliso Google-ka kadibna sawirkaas waxa uu yahay aad Google-ka dhex raadis. halkaas qaybta midig ayaa ku dhufanaysaa. qaybtaas midig ayaa waxaa ka soo baxay images. kadib click ayaa siinaysaa image-kaas. kadib waxaa u imaanaysaa qaybtan oo ah meeshaas oo ay ku sawiran tahay kaamirad. kadib click ayaa siinaysaa. waxaa soo upload garaynaysaa image-ka. upload image ayaa leedahay. choose file ayaa leedahay. kadibna waxaad dooranaysaa meesha
image kugu jiro. Aniga image ayaa igu jiro, kadibna waa soo gelinaya. Image kaas markuu ii soo galo upload uu soo fuulaya, waa kuu soo galayaa, kadib waxa uu yahay image kaas ku sheegaya. Image markuu soo galo image badan ayuu ku tusayaa, qofkan wuxuu yahay wuu kugu jawaabi doonaa. Haddaad rabtid inaad sawiro kale ku raadisid waa ku raadin kartaa, upload ayaa leedahay, kadibna sidaas ayaa ugu soo helaysaa sawir. Soo qaad waxaa maanta saaraynaa loogada jaamacadda Plasma University, upload ayaan dhahay. Markuu sidaa u raadiyo wuxuu kuu soo saari doonaa jaamacadda loogadeeda iyo waxa ay tahay loogadan Plasma University. Waa taas page-keedu soo saaray Plasma University logo waaye. Trick shanaad ama qaybta shanaad waxay tahay sida loogu raadiyo date. Waxaad raadisay book oo lagu magacaabo Communication Engineering. Boogan waxaa la yiraahdaa Communication Engineering ayaa Google ku qortay, PDF ka dhigtay, okay ayaa dhahay. Markuu sidan u soo baxo waxaad rabtaa book gooni ah oo waqti gooni ah ku rabtaa boogaas. Waxaa leedahay halkan wax ka soo baxaysa calaamad ay ku qoran tahay tool, kadib tools ayaa leedahay, kadib inta anytime way kilig ayaa ku siinaysaa, waqtiga ayaa customer garanaysaa. Meeshaas customer range ayaa ku dhufanaysaa, waxaa leedahay from bisha 4 2016 ilaa iyo book oo waqtigan soconayo ayaan rabaa. Kadib go ayaa leedahay, kadib uu raadinayaa buugaag ayuu soo saarayaa. Buugaagtaas date-kooda halkaas ayaa ka fiirinaysaa. Haddii aad ku qanacdeen oo ay caawiyeen, fadlan like saar videoga, subscribe ha hilmaamin, siina raacso inaad gambaleelka taabatid si ay ugu soo gaaraan cashiradeen cusub.